kulanti waan saaxiibayaal lamaantiin meel kasta joogtaan iyo si walba noola socotaan ku soo dhawaada channelkayga Bishaar Maxamuud Beerdara fadlan subscribe like oo la soo sheekooyinka iyo wararka ugu xiisaha badan iyo warbixinada iyo sheekooyinka aan halkaas soo geliyo ku soo dhawaada barnaamijka xogaha xaqada sportiga iyo waliba ciyaartoy aadan maleysaneyn isla markaana aadan hore u ogeyn inay soo mareen kooxaha ugu weyn ee qaaradda Yurub qaarkood iyo waliba waqti waayo kooxahaas ay ku soo qaateen ciyaaryahanka koobaad labada ciyaaryahan ee aan soo qaadi doono waxaa kamid ah xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Sadio Mane oo mid kamid ah xidigaha cajiibka xidigan oo isagoo kamid ah xidigaha ugu cajiibsan ee kubadda cagta magaciisu waa Sadio Mane 10 Abriil 1992 ayuu dhashay waa 27 jir ku dhashay Sellow oo Senegal ah dherkiisu waa 1.75 mitir oo dhiganta 5 feet iyo 9 inch waana ciyaaryahan garabka isagoo ka duula Liverpool ayuu numberka 10aad u qaataa balse ma ogtahay oo ma la socota xidigan in uu waqti waayay ku soo qaatay koox Liverpool kooxa ay kamid tahay Manchester Red Bull Salzburg Southampton ayuu xidigan soo maray hadaba kooxihii uu soo maray wacdii uu ka dhigay iyo bandhigyadii uu ka sameeyay guulashii safashadiisa ayaan markan eegaynaa Sadio Mane ayaa kooxda Manchester qayb ka ahaa 2011 ilaa 2012 waxaana uu saftay 22 gool waxaana uu saftay 22 kulan 2 gool ayuuna u dhaliyay xidigan sidoo kale Red Bull Salzburg ayuu qayb ka ahaa 2012 ilaa 2014 63 safasho 31 gool ayuu xidigan ku ansixiyay sidoo kale kooxda Santos-ka ayuu qayb ka ahaa 2014 ilaa 2016 67 safasho ayuu u dhaliyay 21 gool xidiga lagu magacaabo Sadio Mane xisaabta ku darso ogow maankaagana gali in Sadio Mane uu soo maray Manchester Red Bull Salzburg Southampton waqti waayana xidigan uu ku soo qaatay koox intuusan u soo dhaqaaqin kooxda kubadda cagta Reds xidiga kale xiga waa Virgil van Dijk isaguna waxa uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta Liverpool magaciisu waa Virgil van Dijk 8 July 1991 ayuu dhashay waa 20 jir waxa uu ku dhashay Breda oo Netherlands dherkiisu waa 93 mitir oo dhiganta 6 feet iyo average waxa uu ka ciyaaraa qaybta dambe ee daafaca Liverpool ayuu ka tirsan yahay numberka 4 ayuu qaataa ma ogtahay وما لا سعوتا إن وصامر حدقن كوحاي كم تهاي سلتك إيسو كله غوريغان يا ساوثهامبتون دمانتود نوقتي وايو وكسوقاتي كوحدا كبدا عقتي غوريغان أيو قيبكا لبدكم كوي 10 إلى لبدكم 16 لحدن إلى با كلن أيو سفتي تدبا غولنا waa ansixiyay halka Celtic uu qeybka labada 16 ilaa labada 15 76 kulan ayuu saftay 9 goolna waa uu dhaliyay Southampton ayuu qeybka labada 15 ilaa labada 16 67 safasho afar gool ayuu ku dhaliyay mid kamid ah daafacyada ugu adag ee Premier League dalka England waa darahana ka dhigaya kooxda kubadda cagta Reds waana xidiga xalliyay isla markaana fadhiisiyay qaybta dambe daafaca ee kooxda kubadda cagta Liverpool xisaabta ku darso labadan xidig aan soo qaatay labaduna ka tirsan kooxda kubadda cagta Liverpool ee waqti iyo waayo ay ku soo qaateen kooxda kubadda cagta kooxihii kala duwanaa ee kubadda cagta aan idin soo sheegay isla markaana ay soo mataleen xisaabta ku darso oo ogow in ay soo mareen kooxaasi taxana ay noqon doontaa kuwa kale oo aadan la socon isla markaana aadan ogeyn ayaan soo qaadan doonaa waan idin soo gudbin doonaa hadii eeba laga helo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa fadlan subscribe like oo la soo sheekooyin kala duwan halkan aan soo galiyay tan kulan damana sidaas nabadgelyo salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh